iminka seebaa dhibaatada ka socota waxay ka socotaa guriga madaxweyne ku-xigeenka dagaalku halkaasuu lagaga socdaa dagaalku wuxuu lagaga socdaa mugtay madaxtooyadii dawladdii aan dooranay ee aynugu dooranay inay wax noo qabato inayna halkaasi waxba ka cunin oo ayna waxba ka qaadiin yaa oo dadku hubkoogii iyo qoryoogii wataan ayaanu sheegaynaa oo dhammaystirayay dadkaasi macdanta maanta laga qodaya siyaasatoon macdan laga qoday baanu halkan lagu dhimanayo ku dhimanayn oo difaacan maanta oo ay macdan leedahayna dawladda anagu duulimaad kuma niin waxaanu soo sheegaynaa haddii cid kale noo soo kaxaysato inaanu iska celi doonno cid kale oo dan kale haddii noo soo kaxaysato oo dawladdu maanta ay booshin kasta iyo foosto kasta annaga ay nagu soo jahaynaysa ka halkaa ku soo hamoodaana waa kuwa horta noloshiisa iyo naftiisa inuu ku waayo wuu tala galay wallaahi intuu midh naga hadhayo midh hadduu naga hadhayo midh cid alla cid halkaan u ogol lahay ma jirto بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد شركة جرايد وحدارية هاي باشا حمر عرفان وسيبال أيام موقف كأيكا قبطو دول كيغل أي دقتهاي وحاويان خيراتك يدقاك دول كان عدي لهاي اسكالي ما اسكالي عد كالي وأسو حقل تاكتلا يدو باسكتي قولي ريب حمود لوريا كهالسي عشرين لويد كهالسي seebaal ee communitiga waa lasii baa la mowqif lahay cid kasta oo magacay doonto iyo darajaday doonto ha lahaatee oo dhulkan iyo khayraadkiisa u soo aqal taagta oo cid watana lagama ogola haba yaraatee meesha inta qof ka nool yahay nafar ka nool yahay halkanna cid kale khayraadkiga inay qaadato lagama yaabo kii shirkad wata kii teetarku doona ha lahaado ama dawlad ha ahaato ama cid kasta oo qorshe ku leh halkan inay ka faa'iidaysato uma suurto gelaysa taa horta ha la ogaado in badan baa meeshan dadkan la dabcay in la isku diro oo la iska hor keeno muddo ilaa 4 sano 5 sano ay taaba waxaa la doonaya in dagaal laga rida meesha ciddii dagaalka ka ridaysay ee doonaysay inay dagaal ka ridana maanta xigtadeedii bay ka bilowday inay qoryahaas ugu dhiibto dagaalku wuxuu lagaga socdaa mugtay madaxtooyadii dawladdii aan dooranay ee aynugu dooranay inay wax noo qabato ee aynugu dooranay inay xaqaa ku leedahay inayna siiso horta waa miday ismaan lahayn muuse biixi cid ka xubbaa waddanka soo bari oo muusaan wanaagsan la oran doono horta maa filay marnaba xukuumadda xal baa ka rabnay iyo xaagaan iyo horumarintii dadweynaha hadday caafimaad tahay hadday biyo tahay hadday waddo tahay wax alla wax laga qabta ma jiro halkaan xalka rabnay iyadii baa noqotay caqabad hadday territoriya dalka tahay iyo haddii dalka gudihiisa tahayba iminka seebaa dhibaatada ka socota waxay ka socotaa guriga madaxweyne ku-xigeenka dagaalku halkaasuu lagaga socdaa markii lagu dooranayay anigu waxaan ku bixiya midaaye dadka waad midayso buurti weligii aan sanduuq qura cod ku wada ridin baa codka ugu riday waddo qura dadkaas ku midaysay maantana gurigaagiibuu duulimaadkii lagaga socdaa labadaas shaqaalaysay ee shaqada siisay ayaa maanta dagaalka loo soo dagaalka halkan maanta ka socda ee caqabadda kuwe waa xafiiskaagii taa waa kule madaxweyne ku-xigeen isla xeshood oo wax ka qaba mugtay labada la taliyaal fiican la samayso dadka walaalaha ee reer Soomaal ee isku midka waxaan si u sheegayaa cidda meel kale ka timaada ama meel kale ka timaada ama kumbani kale ha wadato waxay dadkaasi ogol yihiin uma shaqayn doona wax kale shaqaynaya ma jiro waxa dadka walaalaha mid loo kala saari maayo cidda loo kala sheegi maayo loo kala abtirin maayo waxaan si u sheegaynaa cidda kale ee ku soo xadgudubta inayna halkaasi waxba ka cunin oo ayna waxba ka qaadiin yaa oo dadku hubkoogii iyo qoryoogii wataan ayaanu sheegaynaa oo dhammaystirayay dadkaasi difaacanna karaan awood iyo xoog ay ku difaacdaana leh dawladda laakiin waxaan ugu darayaa dawladda anagu duulimaad kuma niin waxaanu soo sheegaynaa haddii cid kale noo soo kaxaysato inaanu iska celi doonno cid kale oo dan kale haddii noo soo kaxaysato dawladdana waxaan faranaa
dadkaa inay garanaysaa ay ilaaliso wadajirkooda ku ilaaliso isku duubnidooda ku ilaaliso oon la kala saarsaarin oon waxa loo kala sheegin waxa weeye deegaankani waa deegaankii ilaahay nagu beeray tan waxaanu soo naalay ilaa intaan leekaanana ilaa 7 awow baanu soo deganay macdanta maanta laga qodaya siyaasatoon macdan laga qoday baanu halkan lagu dhimanayo ku dhimanayna oo difaacan maanta oo ay macdan leedahayna haddii ay ku bani tahay danaynaya macdanta dhulka iyo haddii ay dawlad tahay danaynaysa cid allaali iyo cid aan u ogol lahay halkan inay wax ka qabato ma jirto ka halkaa ku soo hamoodaana waa ku horta noloshiisa iyo naftiisa inuu ku waayo uu tala galay dawladda waxaan leeyahay kubaniyada iyo hawlahan cidda ay soo dhex marayaan waa dawladda xafiisyada dawladda ayaa laga soo saxeexaa laga soo bixiyaa dawladda waxaan leeyahay iyo waxgaradka Soomaaliland inay waxa naga joojiyaan haddii aanay joojinna wixii ala ka dhaca inay iyagu mas'uul ka yihiin hubkiisa nin walba uu sitaa geedanaan ku haysanin ma jirto dawladdu hadday lafteedu soo aweysato halkan iyadoo ku dhimaana kuna ku dhimaana dhimashan horta halkan ogol lahay wax ku bani oo ogol lahay ma jirto tolka hore hadday hadleena isku mid baan nahay mowqif baan ka midaysanay halka cidii ku soo hawoota ciday doontaba had noqoto cidii damac inuu ka galo doonto seemaal waa cidiyadu nafteeda inay halka ku weydo ugu tala gashay halkan maanta shirkeygan jiraad wuxuu daaran yahay shaqaaqadii iyo hawlihii baryahanba ka socday madaqadan deegaankan Soomaaliya ilaahay nagu beeray horta waxaan adkaynaynaa ayadeena tolkii nagu horeeyay ee halkan ka difaacay dalka ee halkan ka soo jeediyay baaqa haday tahay odayaal haday dhalinyar tahayba annaguna kuwa war ka midsano mowqifka ay qaatay mal yaan la qabnaa dadkan deegaankan deganina maanta dhiigooga u hurayaan madaqadan ay ku nool yihiin markaa shacabkani way hubaysan yihiin dhulkoogana way ilaashanayaan halkan isagoo bilaa macdana oo haba yaratay aanay macdan lahayn ayay dadkan difaacanayo dhiigooga u shubayeen maanta iyadoo macdan la deecidna uma ogola haday dawlad tahay iyo haday wasiir tahay iyo haday maxaan ku radaa cid kasta tahayba halkan ninkii soo hamooraya waa nin naftiisa waay wadan nahay beesha Soomaal waxaan leenahay annagu kumbaniga ma ogolin dhulka walba waanu difaacanay tiyo aan daab lahayn oo waxba laga qodanay baanu difaacanay imikana sidii si ka daran ayaanu difaacanaa dhulka yaga wax kumbani la yiraahdo ma ogolin inta aan isku mowqifnahay iska hadasay baan annaguna ka midnahay shaar dawladna ala noo soo gasan kara imikana ba shaar dawlad la socda awsa kumbaniga dawlad ma wadata inaanay dawladdu noo soo raacay ma yan dawladna ka codsanayna kumanaan qof baa ku nool noloshooda ku maareeya ilaahay baa waxa ku yaala naga siiyo waa deegaanka yagii waxa weeyi ma ogolin wax ku balleena cid ku soo duusa waddanka ma ogolin in badan bay dhaxantu nagu qaaday loo qastaba waanu jiifinaa anagu raggii dhaxantu ku dul dhamaysan banaan kolkaaba wala difaacay waa maantana sidii iyo si ka daran baa loo difaacayaa loomana habaranayo wixii wax wada raggii halkan cisho dawladka hadlaya tolka yaa reer maxamuud ah muuqufkii ay yidhaahdeen ayaan anagu ka midaysanaa wax ku bani la yidhaahdo ma ogolin anagu deegaanka Soomaal baryahan buuq baa ka taagnaa buuqa ka taagnaana waxa weeye qolooyin lagu sheego kubaniyo oo dad annaga ay hor socdaan ayaa buuqooyin ka dhamaaway annagoo sida odayaashu ay sheegeen ay tahay waxa weeye halkan cid alla cid looga ogol yahay hadday kubani tahay iyo hadday wasaarad tahay iyo haddii ay cid kale tahayba halkan cid alla cid looga ogol yahay ma jirto waxa weeye dawladda waxaan ka suganay dadweynaha inay u adeegto oo wax u qabato ma halkii ay uga adeegi lahayd caqabad ma waxa nagu noqday codkayagii iyo caqabad nagu noqday oo dawladdu maanta ay booshin kasta iyo foosta kasta annaga ay nagu soo jahaynaysa deegaankani waxa weeye waa loo soo dhintay waa loo soo naf waayay isagoo bilaa macdana maanta markuu macdan yeeshana sidii iyo si ka daran baa dhiigga loo shubaya
wallaahi intuu midh naga harayo midh hadduu naga harayo midh cid alla cid halkaan u ogol lahay ma jirto dib wixii halkaa ka dhacda dawladda madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka laamaha amniga iyaa ka mas-uulaan mas-uuliyadda shaqo ku geli waxa weeye cid kasta maanta halkan haddii ay timaado waxaa wallaahi in mataqaanaayay cid alla cid riixaysa ayna jirin oo ay dhulkooga iyo carradoodana difaacan karaan